وفود ay ka mid yihiin gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cali Said Faqi, taliyaha booliska Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Dheere iyo xubno kale ayaa lagu soo dhaweeyay gegida diyaaradaha ee magaalada tan ee Barawe. ciidamo tiradoodu ay ka badan tahay ilaa 80 askari ayaa qayb ka ahaa, iyadoo ujeedada ciidamadaasina lagu sheegay inay yihiin kuwa ka qayb qaadanaya sugidda amniga doorashooyinka ee la filayo inay ka qabsoonto magaalada tan ee Barawe. odayaasha dhaqanka, ururka haweenka, ururka dhalinyarada iyo qaybo kala duwan oo bulshada ka mid ah ayaa halkaasi ku soo dhaweeyay gudoomiyaha baarlamaanka Cali Said Faqi iyo saraakiisha ku wehelinayay safarka. ugu horeyn gudoomiyaha degmada Barawe Liibaan Abuukar Baafe ayaa warbaahinta la hadlay. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed mudane ambassador Dr. Cali Said Faqi, gudoomiyaha ku-xigeenka amniga gobolka Shabeellaha Hoose ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka, taliyaha qaybta 6aad, taliyaha qaybta taliyaasha kale saraakiisha amniga ee degmada Barawe dhammaan waxaan maantay soo dhaweyn u sameynay mas'uuliyiin nooga timid degmada Baydhabo oo ugu horeeyo uu hogaaminaya gudoomiyaha baarlamaanka Dr. Cali Said Faqi, taasoo ujeedkoodu uu ahaa ukurgelida iyo hergelinta bilowga doorashooyinkii loo asteeyay degmada Barawe ee ah in lagu qaban doono degmadan 26 kursi, kaasoo horeba loo soo saaray 13 kursi. taas isu diyaarinteeda iyo bilowgeeda hadii la yiraahdo maalmo runtii farxad weyn ay noo tahay inaan maanta in ku soo dhaweyno degmada Barawe oo ah caasimadda dawlad goboleedka Koonfur Galbeed. sida gudoomiyaha degmada uu sheegay, aniga waxaan isla wadnay inaan u diyaar garowno sidii maaragtay doorashadu ay ugu qabsoomi lahayd caasimadda dawlad goboleedka. runtii dadaal badan aan muujinay ilaa shalay ilaa maanta ilaa daraad waxaan ka shaqeynaynay sidii aad noo soo gaari lahaydeen, dadkan aan maaragtay ugu wacyi gelin lahayn inay ka qayb qaataan sidii hawshaas u dhici lahayd. hadda ka bacdina insha Allah taala adiga nagu soo biiray, adiga taliyaha qaybta, waxaan rajeynaynaa insha Allah taala inaad aragtidiina iyo talooyinkiina iyo tusaalihiina inaad nagu soo biirisaan. mudanayaal, waxaan qayb ka ahay aniga oo ah taliyaha qaybta 6aad, wafdi oo hogaaminayay gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed mudane Faqi, taasoo iyo wafdi kale oo balaaran, taasoo ujeedadeedu ahayd inaan ka qayb galno oo aan qayb ka noqono doorashada baarlamaanka 10aad xubnihiisa laga dooranayo gobolka Shabeellaha Hoose 26 kursi. sida daraadeed degmada iyo mas'uuliyiinteeda oo halkan fadhida dhammaanteen waxaan wada saaran mas'uuliyad ah inaan gudano waajibaadka naga saaran doorashada xubnaha baarlamaanka degmada caasimadda ku meel gaarka ah Koonfur Galbeed, in aan si habsami leh u qabano ka shaqeyno sidii doorashooyinkaas. taliyaha ciidamada booliska Koonfur Galbeed Soomaaliya taliya Cabdi Dheere ayaa isaguna dhankiisa warbaahinta la hadlay. maanta waxa farxad weyn ii ah anoona u galin qaybaha kala amniga, farxad weyn waxa ii ah oo suurtana geliyay Ilaahay ka sokow maamulkeena madaxdeen Koonfur Galbeed oo ugu horeeyay madaxweyne Cabdicasiis oo ugu horeeyay oo suurta geliyay inaan number 1 aan ka noqono deegaan doorashada labaad maamul goboleedyada kale inaan koow aniga aan u bilaawno farxad gaar ay tahay horta. inta markaan ka gudbo amniga, anaga amniga si gaar ah booliska markaan nahay aan u hal saaranahay gudiga amniga Koonfur Galbeed ana ugu jiro anagoo kaashanayna shacabkan wanaagsan, nabadda jecel, dawladnimada jecel, martada jecel oo heer Barawe ah, anagoo kaashanayna iyo maamulka iyo ciidamada qeybihiisa kala
waxaan rajaynayaa inaan guul nooga soo gabagabo doon iyo farxad iyo reero nooga soo aan rajaynaa insha Allah anagoo saaka wafdiga gudoomiyaha hordhaciisan ahaayay saakan imaday laakiin baraa waa aan joognay safar badan ku imaan jirnay sida kale aan u joognay diyaar garowgana 2020 kan soo bilownay waxaa nooga dhamaaday 2021 ayaa nooga dhamaatay gudoomiye waxaa hortaada ka ballan qaadayaa haddii ilaahay ogolaado inaan anaga si buuxdo aan u diyaar garownay amniga si nabad ahna nooga dhamaanna anagoo kaashanayna shacabka iyo maamulka iyo ilaahay anoo kaashanayna ugu dambeyntii gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya Cali Sayid Faqi ayaa ka hadlay ujeedada socdaalkiisa iyo doorashooyinka dhawaan la filayo inay ka dhacaan gudaha magaalada tan ee Barawe. wafdiga maaragtay bari imaan doona wafdiga gudiga doorashooyinka heer state waxaa kale imaan doona madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya mudane Cabdicasiis Laftagareen iyo dhammaan dadka kale maaragtay xiisaha u haaya inay u tartamaan kuraasta. magaalada Barawe magaalo taariikhi ah waay ku fiican soo dhaweynta dadkeeda ay jecel yihiin nabad waxaan mataqaanaa aan kula dardaarmaya madaxda degmada iyo amniga inta ku sugan in amniga lagu dadaalo inta muddada ay socoto maaragtay doorashooyinka dadweynahana ay u helaan fursad ay ku adeegan karaan meelaha la xiraa ay noqdaan meelo mataqaanaa kooban waxaan rabnaa ganacsigii sidiisa inuu socdo dadkii sidooda inay u adeegtaan ribooradooda kasoo degaan magaalada laga bixi karo marka taas waxay u baahan tahay in maaragtay laga wada shaqeeyo mar la wada fariisto waxa dhimanba waa muddo yar waxaan rajaynayaa wiigaan soo socdo oo maanta beri sabti u yahay isla wiigaan inaan bilaabi doono doorashooyinka